26 Juun 2022 waa maalin sabtiya maxaan dhahay habeen sababtoo saacadu hadda waxa weeye 3 habeenimo qoraxdan oo jeeda sayftiin u tahay waa magaalada qoraxda aysan ka dhicin waa adduunka meesha u dambaysa marka la eegayo dhanka وإنا إلى ربنا لمنقلبون أنا صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي wali waxaan ku guda jirnaa oo si soconaa meeshaan u soconay ee aan ugu talagalay maanta inaan ka soo duubno fiidiyogan hadda waxaan joognaa magaalo ilaa 2 saac u jirta meeshaan u soconay xoogay inaan kafee cabno waqti qaadano waxaan joognaa Rafanimi waxaan ku wajahnaa Suudaan kula hadii la yiraahdo maxaa kale bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan soo galay safar dheer oo soo galay xagga iyo wadamada gobolada in cadceed ka dhicin hadii waxaan joognaa magaalo la yiraahdo Rafanimi bartakeyga baan joognaa waa kafeynayna xoogay kadib waan dhaqaaqaynaa insha Allah waxaan boqolayna xagga iyo dhanka in cadceed ka dhicin ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo gaadhnay magaalada la yiraahdo Suudaan kula waan soo dhaafnay xariiqdii adduunka imigana hadii ilaahay ilaahay waxaan malaynayaa aanu si socono iifaala oo iyaduna badda fadhida afka ku haysa 150 bay noo jirtaa saacad waa 10kii oo xoogaa xagga waqooyiga waxa naga sii xigta badda fadhida oo iifaala ah 150 noo jirta dhinacaasna waa Ruushkii dhinacaasna Norway wali waxaan ku guda jirnaa safarkii aan ugu soconay cilifka waqooyi ee ugu dambeeya adduunka hadda waxaan taaganahay meelaha ugu kanaacada badan leh kanaacadani waa kanaaco waaweyn way ku qaniinaysaa laakiinse waxa ilaahay mahadiya in ay tahay kanaaco tallaala sida naloo sheegay oo aan wax dhibaato ku soo gaarsiin kaliya waxa dareemaysaa xanuunkeeda uma dareemaysaa saasaan iskaga ilaalinayaa maanta ay taariikhdu tahay 26 Juun waxaan joognaa cirifka Finland waa meesha ugu dambaysa ee cadceedu ka dhacdo halkan aanu joogno cadceedi ma dhacdo waqtigan oo kale aanu joogno waxay u yiraahdaan dadka Finishku waa maalin habeen wax la yiraahdaa ma jiro hadda waqtiga aan taagana saacad waa imsay waqtiga hadda aan taagana saacadu waa 1 habeenimo cadceeduna haddii aan dhinaca kale idinka tusno way soo jeedaa cadceedina la fiiriyo cadceedina waa taas cadceedi way halka waxaan joognaa magaalada bartankeedii waxaan nala socdaa caruurtaanu dhalay maanta oo la qaadanayna safarkan familkii ma sha Allah familkii nala socda waxaan nala socda khabiirkii weynaa walaalkeen Cabdirashiid oo muddo badan ilaa 30 sano wadanka ku nool ahaan hogaamiyaha safarkan noona sheegay meesha waqtigan aan ku qaadanayno bishan safarkayga koobaad ma sha Allah waa maalin taariikh leh 26 Juun ما شاء الله أكبر الله هكذا صلي دغنا صلاه waxaan malaynaya Soomaaliya ka ugu horeyna meeshan cid ku tukatay وميل waxa laga yaabaa meeshan wadigeed Ilaahay lagu caabudo laakiin maanta ana Ilaahay ku caabudayna ku tukanayna ma sha Allah waa nimco weyn صلاه الصبح hadda tukanayna الصلاة خير من النوم لحية وتكتشون hadda waxaan ku guda jirnaa safarkii dheeraa ee u galay halka iyo waqooyiga adduunka bartani waa dhigtii ugu dambeysay ee loolka bartaas waxa mara ay tatuurka ila tatuurku soo qaybsamaan halkan waa dhigtii loolkii ee adduunka qaybinayay calaamadaas waa calaamadii ugu dambeysay ee adduunka waqooyiga wixii dhanka ka xiga iyo dhanka ka xiga
xaggana koonfur baa u dambaysa xaggana waqooyi waa meeshii u dambaysay waa halkani waa meeshan aan joognay ee maanta safarkaygu aan ku ekaa inkastoo anagu 200 kilomitir aan hore u galay haddana halkani waxa weeyaan meesha ugu dambaysa ee adduunka ما شاء الله حريقنا سيدا الشيخ عبد السوي ناصر رحي وحريقي كلا قيبينيي وقوي كونفور حقا marka loo sii socdo wax yani adduunka aan wasiixi waxa laga siixiga kaymo iyo bad iyo buuro iyo barf unba xagga naga siixiga xaggana waxa naga xiga ruushkiiba xagga naga xiga xaggana waxa naga xiga Norway ba halkan naga xigta halka anagu hadda aanu soconana waa wadankii aanu ka nimid waa villa waxa idinka muuqda wali cadceedu waa soo jeedaa saacada aynu joognaana waa 3 habeenimo sidaad u arkaysaan cadceedu nagama dhicin maanta say u dhanayd waanu isla soconay iyada oo halka ku jirto baan dhamaysanay haddana wataana la socota ilaa berito lan saasay ahaanaysaa saacadu xilliga markay tahay waxyaabaha cajiib kale ee aanu aragnay waxa kamid ah in markaanu ka soo baxaynay magaaladeennii waxay ku beegnayd hadda bariba shalay oo kale aan oran karaa shalay galabnimadii 6dii galabnimo 6dii habeenimo ayaanu ka soo baxnay magaaladeedii ilaa iyo hadda aan joogno 3dii habeenimo qorraxdu sidii bay u taagantay ma dhicinba in yar bay istaagtay way soo noqotay waa mucjizaadka safarkan waxaan ugu magac darnay safarkii 26 Juun safarkii 26 Juun iyo meesha adduunka u dambaysa dhanka waqooyi ma sha Allah وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر halkan waxaa ku sugan dhammaan caasimadaha adduunka magacyadooda iyo inta kiiloomitir ay jiraan iyo jiha kasta ay meesha inaga jirto caasimad kasta soo dhaw halkan waxaa ku qoran waa Moscow waa caasimad dalka Ruushka waxay noo jirtaa 1368 kiiloomitir jihada xaggaas ay u jirtaa ay Roma oo Talyaaniga caasimad Talyaaniga ah waxay jirtaa 2985 kiiloomitir bay jirtaa Roma xaggaas ayay inaga beegan tahay waxa iga muuqata iyadana Madrid أنا 26 Juun 2022 waa maalin sabtiya maxaan dhahay habeen sababtoo saacadu hadda waxa weeye 3dii habeenimo qoraxdana oo jeedaa sayftiin u tahay waa magaalada qoraxdu aysan ka dhicin waa adduunka meesha u dambaysa marka la eegayo dhanka waqooyi Allahu akbar hada khalq Allah Ilaahi subhanahu wa ta'ala abuurkiisa weey